عليكم صحابتي وادي إسلامية عندنا عشر كان waxaan oga hadlayaa casharkan sida loo waxeeyo page kaas oo ah page-ka Facebook marka halaga faa'iideysto waa cashir aad u xiiso badan marka waxaan idin leeyahay asxaabta ka faa'iideysta channel-kan like iyo subscribe iyo share intaasna igu caawiya waxay ii noqonaysaa dhiirigelin anna wixii aqoon oo aan leeyahay waa idin faa'iideynayaa marka haddana casharkii aan bilaabayaa waxaad tegaysaa markii ugu horeysa Facebook-gaaga tegaysaa Facebook-gaaga markaad tagtid waxaad tegaysaa meeshaad profile-kaaga intaad tegin halkan usoo dhadhacaysaa halkan hoose markaad soo aadid waa qaybta login-ga waaye meesha maaragtay logout laga dhaho intaad logout dhihin waxaa leedahay see more baa leedahay markaad see more dhihdid kaasa meeshaas ka qoran tahay pages aa ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid waxaa leedahay create baa leedahay get star waa aad ayuu u fudud yahay marka asxaabta magacaad rabtid aad ku qoraysaa haddana waxaan iskaga qoranayaa Cabdixakiin magaca rabtid baad iskaga qoranaysaa maahan hal magac maahan labo magac maahan saddex magac adigu waxaad rabtaa iskaga qoranaysaa waa page Facebook waa kaasa Cabdixakiin aba hadda ku qortay bas kabacdi next baa leeyahay next markaan dhaho which category best describe this page intaan midkaad rabtid ayaa ka dooranaysaa intaan which product safa healthy beauty shopping retail personal blog ana marka waxaan dooranayaa product aan dooranayaa ay next baan leeyahay next markaan dhaho wuxuu ku yiri do you have website marka website ma haysataa website ma haysti markaas waxaan leeyahay I don't have website haddii haysatine halkaas aad gelinaysaa website-ka wuxuu kaa saacidayaa hodhowti si fudud baa maaragtay maxaa ahaa channel-kaaga page-kaaga maaragtay dadka maaragtay maxaa like baad uga heli kartaa oo maaragtay caan buu u noqon karaa marka hadda aniga ma haysid waxa la yiraahdo website marka waxaan leeyahay I don't have website kabacdi next baan leeyahay next markii aan dhaho waa kan hadda waan dhameeyay wuxuu yiri use image ayaa saaranaysaa image waxaad rabtid baa saaran kartaa waxaad rabtid maahan hal maahan labo waxaad rabtaa saaranaysaa save baa leedahay save markaad dhihdid haddana cover photo saaranaysaa cover photo markaad saaratid baa kana waa ay kala duwan yihiin cover photo iyo image waa midka caadiga oo aad saaranaysid cover photo waa sawirka maaragtay behind-ga oo sawirka caadiga saaranaysid gadaashiisa waaye marka waa kaasa kan waa iska dhaafaa waa kaasa cover page-kaaga cover page lama dhehe waxa la cover page waa sawirkaas aad u jeedid waa gadaashiisa kabacdina waxaa leedahay dhan baa leedahay ileen waa dhameeyay waa kaasa hadda waa kaasa Cabdixakiin Ruush waa kaasa page kaasana page ku asaasay waa cashar asxaabta aad iyo aad u fudud waaye marka halaga faa'iideysto waa kaasa horay wixii sawir aan saaray waa dalqayo isoo dhahay waa kaasa waxaanu page hadarati ku xiriirsan kartaa page-kana kale BBC News Africa aad ku xiriirsan kartaa followers marka
asxaabta waa kaasa idinkana maaragtay waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe iyo like iyo share aad channelka ii saartaan. anina wixii aqoon oo maaragtay aan leeyahay waan idiin faa'iideynayaa. marka hadda waa kan waxaan abuuray page baan abuuray. hadda waxaan tegayaa qaybta Facebook hadda usoo laabanayaa. markii aan usoo laabto waa kana saan hadda waxaan ku abuursaday page baan hadda ku abuursaday. pagekaas wax yar kabacdi maaragtay geeskaas ka soo baxayaa. marka waa kaas asxaabta waxaan idinka codsanayaa inaad casharkan ka faa'iidaystaan oo like iyo share aad ii saartaan. marka waxaan idin rajeynayaa khayr. waxaan idin dhahayaa Ramadaan Kariim meel walbo oo adduunka ka joogtaan.